بسم الله الرحمن الرحيم وعاوي اونلاين كوليدج maanta waxaan qaadanaa qaybta ugu dambeysay ee core employability skills-ka. Employability skills oo qofka uu ku sifeysnaado oo looga baahan yahay waa characteristics-ka ku gaarka ah haddii aad leedahay maxay employability skills. maanta waa maalintii shanaad macalinkuna waxa weeyaan engineer Casey. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa multitasking laga rabo. multitasking waxa weeyaan waa qofku inuu shaqo badan qaban karo. Positive attitude wax fiican inuu ka fikirayo. Motivation oo dhiirigelin leeyahay. Energetic yani energy badan, taaqo badan inay ku jirto, awood badan. يعني طاقة بدن markii loo leeyahay qofku waxa raba activities in laga arko soo dhaqdhaqaaqayo iyo qaabka wax u qabanayo soo fudud yahay yani. Multitasking skills waxa weeye inuu yani qofkan function fara badan qaban karo. Multitasking aad tahay stress inaad ku shaqeyn kartid waxyaalo ay jecel yihiin kambaniyada waa yani waxaan ku sheegay anigu intaas oo shay inaad isku qaban kartid adoo business waxa laga rabaa in marketing ka tagtid selling noqotid accounting noqotid saas iska jecelin kambaniyada way amaanayaan qofkaas oo kale multitask ay duuyo qof oo xataa IT ma mar qaar gali karo anoo kale hada fan ma jecel laakiin anoo kale hada IT gana waan marmar jaamacada waa ka qayb qaataa oo Moodle baaraaday WordPress oo IT ku shaqeeyaan ardayda ku diiwaan geliya. Okay, positive attitude waxa weeyaan qofku inuu mar walba tafaa'ul wax fiican leh ka hadlayo oonan yani pessimistic ayan optimistic yahay. Motivation kana waxa waa mar walba inuu dhiirigelin yahay inuu shaqeynayo oo kaligiisa oo cidna daba soconin. waxa kale qofkan laga rabaa self confidence inuu isku kalsoon yahay, leadership ama management skills inuu leeyahay. Leadership waa hogaamiye inuu yahay ama management skills uu leeyahay waa core employability skills ka mid ah. naftaada ku kalsoon tahay waxa weeyaan waa wax walba oo qaban kartid. qofka naftiisa ku kalsoon waxa raada waa qofka mar walba guusha gaara sababtoo ah kuma jirto dib u dhac waan kalsoonahay waxaan way soconayaan weeyaan I can waa awooda ayuu ku shaqeeyaa qofka naftiisa ku kalsoon. qofka leadership ka ahna hogaamiyaha ahan sifaadka hogaamiyaha laga rabo uu leeyahay inuu decision making go'aan gaarayo oo qorshe dejinayo planning shirkadda ka qayb qaadanayo motivationkii shaqaalihii dhiirigelin kaca maxaa ku dhacnayo istaag maanta ma shaqeys nin yani activity laho oo energetic oo energy ku jirto mar walba dhaqdhaqaaqayo motivation leh oo mar walba dhiirigelinayo dadka dad ma aragto oo ayagoo wax loo diin hool qabanayo dadkaas waa dadka guuleysta ugu dadka waa ku qoslaan laakiin qofka say kaligiisa mar dhahayo niyo meeshan waxaan baashan loo dhigay halaga qaado shaqo kuma laha haddana laakiin nin de jecel nadaafada iyo dhaqdhaqaaqa weeyaan. Professionalism waxa waaye professional inuu qofka yahay. Willingness to learn inuu wax barto inuu rabo. Customer service skills sida customer loo adeego inuu garanayo. Common sense inuu wax dareemi karo. Professionalism waxa weeye qofka inuu xirfad u gaar ah oo professional uu ku yahay la dhahay uu leeyahay. Professional tahay markii uu leeyahay skillful tahay xirfad oo buuxda leh. hal dhinac waa inaad xoog saartaa oo aad hadhoodi oo lagu amaanayo kuwa kale ku yaraadaan laakiin midka koowaad waa in hal dhinac meel iska saartid weeyaan. Willingness to learn yani qof wax bartay inaad tahay waxaan waan daadiyay aan noqon waan daadiyay oo ii sheegtay laakiin mar hore ma garanayay dadka saas ma jiro. علي بن أبي طالب هو قفكي هل كلمة إبرة صرت له عبدا الضون بان ونقلنا أحبر الشط وقالي صوابته جاهل كو ينك وحبرت اسكم بيد ما هو تكررني سايدك بقى يا وتكررني سامرك willingness to learn إنه وحبرت مر بالبو إني يوم ما إبرتي صاحبه رهاي ذكر إنه ما إبرتي دوشة إنه ما إبرتي تهاي يا لو بهاي iyo in badan ba